sanadku shaqadiisu wax kala ma bahaba waa inuu u shaqeeyo state kan weeyaan waxaan isleeyahay xoogi ka horeeyay toddoba senator ahaa 8 ku noqo konton iyo saddex ka horeeyay konton iyo afar ku noqo kii ugu dambeeyay inaan ahay waa dhacda laakiin waan huba kii ugu liitinaan noqon doon haddii ilaahay yiraahdo sanadkan ka bilaabi doona asii quliis in reformkii institutional reform ka shaqeey jiray ama dib habeynta hay'adaha quliis ka bilaabi doona haddii la yiraahdo muhiimadda sanadku leeyahay aad bay u ballaaran tahay waxaan rajaynayaa 4 sano hadda kor soo shaqeey jiray 5 sano iraado sanadka dheerka marka lagu daro waxaan la arkin oo la maqlay inaan ku soo biirin doono haddii ilaahay yiraahdo dardar cusub sababtoo waxaan ku tashanayaa khibradda dhexta la sanadka ayaan ogaa sanadka kan waxaan ogahay konton iyo saddex senator oo aad u wanaagsan oo aan hubo inay wax qabanayaan inay iga horeeyeen aniguna maartay saan sheegay aan ugu liido doonin haddii dalkan qurbkiisa lagu xiro oo qayb walba ay ka soo baxdo shaqadeeda waa meesha dhigi jirnay walba madaxaaga meedax ku duuba Soomaalidu dhigi jirtay dalku wuu dhismi lahaa galmudug faa'iido ay ka faa'iido doontaa waxay tahay intaas oo khibrada baan doonayaa inaan dawladana ugu dhex galo caalamkana ugu shaqeeyo iyadana aan kula dhex joogo haddii ilaahay yiraahdo haddii aad maanta ii ogolaataan intaa ay in kale aan halka ku soo koobi karin ba insha Allah ta'ala waan qaban doonaa dadaalkii baan halka ka soo wadi doonaa aniga idinku 2 sano baan wada shaqeynaynay wad ogahay waxa isleeyihiin maartay wareed haya ninka amaad beeshan ku aastaan baa isleeyadeena xagee u socdaa saan sheegay 4 sano waa guarantee in la joogo macluumaad marda seetar istisaan maanta sababtoo ah sanadku wax kala ma qabtaba interestiga ama danta gobolka ayuu ka shaqeeyaa marka 4 sano ayaad maanta ii ansixinaysaan iyo shan wax Ilaahay iga dhigo dawladda dhexe haddii Ilaahay ii geeyo libaax baa ku biiraya la xisaabtamaya haddii rabbiidmo ka dhex shaqeynaya inta firfircoon ee galmudug ka timid ayaan insha Allah ta'ala baalahooda iyo galbooda ku tashanaya wada shaqeyntooda Soomaaliya in meesha ay maartay hadda marayda laga sii hormaray way ujeedada koowaad ujeedada labaadna isaga sheegayno waa mid halkan wada fadhino waa galmudug weeyaan haddaan tan Soomaaliya la helin tan galmudug ma jirayso kaligeed